maanta bishu tahay 17 November 2019 waxaa dawladda Soomaaliyeed ku wareejinaysaa gurigii Maxamed Cali Nuur oo ku yaala kilometer 5 ama jaamacadda ummadda horteeda ku yaalay oo dad Soomaaliyeed hore u deganaayeen hadda samaanta milkiyadda dadkii laha loo celinayo dawladda oo ay hogaaminayaan maxkamadda gobolka Dr. Muuse waxaan uga mahadcelinaynaa dawladda iyo nidaamka iyo xukunka dalkana dawladnimo deeqda dadkana dawladnimo deeqda annaguna raalli baan ku nahay in dib yaraan loo kusoo wareejiyo dadkii degan oo muddo ku noolaana annagu waa iska cafinaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay inuu nagu soo wareego dhulkii Dr. Maxamed Cali Nuur oo gacantiisa ka baxday 90 ilaa haddana ay gacan dad kale ku jirtay intaasoo soo martay process kala gedisan 90 dhexdiisa doctorka marow yimid wuxuu yiri waxaan isdhahnay bal xoog ku daya markay waqooyiga iyo koonfurtan kala deganay dadka dad kala dheer ayaan markii uu yimidna wuxuu yiri aniga markay nabad noqotaan dhulkayga u maadona dhiig lagu daadin maaha aad ugu mahadsan yahay doctorka waxay soo gudboontaba maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inuu ku soo wareego dhulkii Dr. Maxamed Cali Nuur gacantiisa waxaan ma hadda ugu celinaynaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Hodan aad u mahadsantihiin waana ku faraxsanahay maaragtay Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud gaar ahaan saldhigga Hodan oo runtii dhabar adeeg muujiyay dhowr maalin gacanta ku sii hayay gurigan maanta la furinayo maanta waxaan goobjoog u nahay waa furin kale oo aan ku sameynayno xamar gudaheed aan ka sameynayno dadka Soomaaliyeed horena u dirnay baaq haddana waa diraynaa waxaan rabaa inaan luqadada ku dhaho Hodan iyo howlwadaag iyo kaaraan guri laguma haysan karo maanta 2019 hilwaa iyo daynina goof ahaa maayaan dhul cabiri 80 fariintaas waa in idin gaarto kuwa diiday markaan u baaqnay annaga diyaar inaan habeeyo maalinba u nimaadno oo ka furino waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay saaqbasho waxay kala haystaan isu celiyaan cafis iska dalbadaan culimada iyo doorka Soomaaliyeedna waxa laga rabaa inay baraarujiyaan doorkaas laga rabaa waxa laga rabaa inay iscafinta faafiyaan laga rabaa tasaamuxa inay faafiyaan laga rabaa aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku wareejinaynaa furaha